haddii aad fikirka nala qabto haddii aad qabto in reer burcanimo lagu soo saaro maanta xildhibaan haddii aad qabto inaynu jebino silsiladaha iyo gerbiyada qabyaaladda haddii aad rabto inaad doorato qof xildhibaan ah oo aad ku dooratay ajandihiisa berrina aad kula xisaabtamayso. Asalaamu calaykum. waa ramadaan baan ku jirnaa 10kii hore waxay ahayd 1dii bisha ramadaan maalintii aan soo geliyey inaan u taaganahay inaan u tartamo oo aan isu taago oo aan u qumo xilka magaalada Burco hadday noqoto xildhibaannimo golaha deegaanka iyo hadday noqoto insha Allah mustaqbalka si aan ku rajo weynahay maayarka magaalada. hadalaynta ugu badan maanta dowladda hoose ayay ka socotaa magaalada Burco kulliba si aan jeclaysanayn bay uga socotaa insha Allah. waxaan rajaynaynaa dowladda iyo ciddii ku shaqo laba inay cadaalad haddii Ilaahay ka dhigo qaadi doonaan qofkii qaladaad ku soo baxaana weygiisa oo mari doono qofkii wax dhib aan geysan insha Allah tacaala uu si xor ah isaga soo bixi doono. taas marka halka kaga tago sidaan sheegay 1dii ramadaan bay ahayd maalintii aan shaaciyey inaan hamigaasi ugu jiro inaan magaalada Burco hamigeeda qaado. reer Burco baan ahay meel kasta adduunkaan maro dib u dhaca magaalada iyo horumarkeeduba wax iga hadhaya maaha meel kastan caalamka ka tago. Soomaaliduna waxay tidhaahdaa cidna uma maqna ceello uma qodna. dadka inta wax bedeli karta inta hamiga ummadda sida inta qorshayaal horumarineed keeni karta hadday dib isu dhigaan oo yidhaahdaan meeshan meel aynu wax ka qaban karno maaha marka maalinta wax la qaban karo kulleyba ma garanayo. waxaan uga socdaa mikrofoonkan usoo qabsaday caawa dhowrka maalmood 1dii ramadaanta ilaa iyo waxaa isa soo taraya taageerayaasha daafaha caalamka oo dhan jooga oo runtii si aanan filaynin ila soo xiriiraya fariimo igu soo diraya si toos ah ila soo hadlaya hadday noqoto WhatsApp iyo hadday noqoto Facebook. fariimaha ii imanaya runtii ee leh maanta markaad soo sharaxday waxaana soo galay in magaalada Burco weli dadka aanay ka dhamaanin runtii kama dhamaanin ayagoo halka ka duulaya inaad maanta ku dhiirato inaad soo shaaciso inaad ku dhiirato inaad xilka isu soo taagto aad iyo aad baan kugu bogaadinaynaa. fariimo aad bay u badan yihiin hal fariin baan insha Allah tacaala idin soo qaadi doonaa inta aan iminka aan safgareeyay ama aan hayo dhowrka maalmood 100 fariimood way ku dhow yihiin oo daafaha caalamka noocyada kala duwan ay dadku yihiin dhalinyar aqoon-yahan siyaasiyiin laftooda xataa oo ay ka mid yihiin ba xaqiiqatan xildhibaano hore uga soo shaqeeyay golaha deegaanka ee magaalada Burco. waxaan idin akhriyi doonaa mid ka mid ah fariimaha kuwii u dambeeyey insha Allah tacaala midna waan soo akhriyi doonaa. waxaan kaloo soo bandhigi doonaa barnaamijyo runtii waan soo shaaciyeyba sidee u suura gelayso inaan barnaamijyadaas aan hirgelino. waxaan u baahannahay inaga lafteenu aan ka duulayno ajendaheena. sidoo kale waxaa jiri doona barnaamijyo xiriir inoo ah haddii Ilaahay ka dhigo hadday noqoto media haddaan isku wadaarsanayno iyo hadday noqoto madalo furan oo si toos aan macluumaadka u kala qaadanayno. intaana fariinta u gelin qof laga hayo ajenda sax ah oo qoran oo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 la oran karo oo la fahmi karo oo ilaa imka golaha wakiilada ama golaha deegaan isu soo sharaxay uu yar yahay. anigu waxaan rabaa inaan noqdo kii koobaad ee magaalada Burco. waxaan doonayaa inaan noqdo qodobada maanta aan idin sheego haddii ay soo saartaan reer Burco hadday soo saaraan inaad igula xisaabtantaan oo aad ii qortaan haddii Ilaahay ka dhigo. iminka waxaan akhriyi doonaa mid ka mid ah taageerayaasheena iyo dadka fikrada kala duwan soo dhiibtay oo aad iyo aad u badan. waan akhriyi doonaa insha Allah barnaamijyadeena dambe xubno badan oo ka mid ah iyagana mid ka mid ah ayaan soo qaadan doonaa dabcan kii ugu dambeeyay. taageerahana waa gabadh weeyaan waxay tidhi Burco waa bilicdeena iyo horumarkeena waxay magaaladu wax ku tahay waa dhalinyarada waxaan jeclahay inaynu midowno Burco u tashanno. waxay tidhi dhalinyaradu waxay wax ku tahay hoggaan sax ah oo isu taaga
waxay tiri dhalinyarada waxaan leeyahay markan waa markeennii waa in aynaan qabyaalad cid ku dooran ee aynu ku dooranaa qofka danta Burco ka fikiraya danta dadkiisa iyo danyartiisa wax ku soo kordhinaya Burco waxaa taala caqabado waaweyn waxay tiri Burco waxaa hor taala caqabado waaweyn oo ay adag tahay inay ka baxdo ogaada bay tiri waa hal maalin iyo 5 sano macnaheedu waxay ka wadaa maalinta kaliyaata ayaad masiirka magaaladaada iyo mustaqbalkaaga oo dhan ka gaaraysaa waxay tiri dhalinyarta Burco shaqo la'aan ma hayso waxa haysa dawlad la'aan Burco goobo badan oo shaqo abuur laga sameyn karo ayay leedahay inay dawladdu furtana loo baahan yahay dhalinyartaydii inaga Burco u dhalanay horumarkeeda inaga bilaabmaa waa inaynu inagu garab istaagnaa qof kasta oo Burco horumarkeeda doonaya anigu Cabdicasiis isku qolmo nihin waxa uu ahaa macallinkayga intaan shakhsiyadiisa ka aqaano wallaahi waa qof Ilaahay yaqaana oo aqoon diin leh xaraan iyo xalaalna kala saaraya Ilaahay ka raali noqdo sababta darteed ayaan u soo raacay una doortay markale way dhaarto waxay tiri wallaahi xitaa aqoon guud xitaa iima laha isagu yani dabcan ma garanayo wallaahi aniga laftaydu waxay tiri wallaahi xataa aqoon guud iima laha fees ahaan ama waji ahaanna iima yaqaano waxaan u soo raacay waa danta Burco oo bilicsan qofka sidaas oo kale u fikiraya waa dadkan u baahannahay inay magaalada u kacaan haddii aad fikirka nala qabto haddii aad qabto in reer Burcanimo lagu soo saaro maanta xildhibaan haddii aad qabto inaynu jabino silsiladaha iyo garbiyada qabyaaladda haddii aad rabto inaad doorato qof xildhibaan ah oo aad ku dooratay ajandihiisa berrina aad kula xisaabtamayso waxaan ka rabnaa inaad nagu soo biirto beejkeeda kala duwan baad soo raaci kartaa WhatsApp-yadeeda beejka ayaad soo raaci kartaa gurubyada kala duwan ee shakhsiyaadka kala duwan ku jiraan baad nagala soo qayb noqon kartaa dabcan doorashadu ma dhowa waqti baa lagu dari doonaa laakiinse hawsha inoo taalla ayaa u baahan hadda inaan sii bilowno geediga hadda inaan sii bilowno waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu